محمد كاهن أحمد وزيرك وزارة أرمها جودها الصومالي لأن أنا قدومي كحجان كحزب كلمية وحاول ستة صوشة إن حزبية معارض كاهن الصومالي لأن أي لكليهن لنع سياسة الدولة الصومالية وحاول شيء هبين كي تضبية طبعا كمية بريء كلا الحسية سجادية طبعا كمية مركي يسوي مادين مسؤولين قصر سن حزبية معارض كي مسؤولين حكومة مدحوينه هجامين أي ستة صو إنجنير فيصل على ورابة قدوميها حزب قوي وشيء إن الدولة نمط فشلantay Soomaaliland taa badalkeedana loo baahan yahay inay Soomaaliya la midoobaan waxa uu wasiirku si toos halkaasi uga qabsaday markhaatiyaal nool oo kamid ah mas'uuliyiintii xaggooda matalayay gaar ahaan dhinaca xukuumadda waxa uu tilmaamay in ay ka baxeen xayndaabkii siyaasiga ahaa ee Soomaaliland isagoo sheegay in kuwaasi ay tahay in meesha laga saaro sidoo kalena la furo ururada si ay u soo baxaan xisbiya Soomaaliland waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu xayndaabka Soomaaliland buu sheegay inaanay ku jirin xisbiyada mucaaradka ee haatan محمد كاهن أحمد وفسر يقضى بدأسي يقضى بكرة دوان أي سيدو كلا هذا الكراعي إن يكون أذكت هاي جودهان إن وحوض هذا لا أي لقلان حزب هذا معارض وما دام أو وحويري وهدف قوي هاي سومالي وين وسيلك أرمها جودها هو شيء إن يسقوا عضين أيوه إن إنجنير فيصل على ورابه قدوميها حزب قوعد سياسي يري سيدو كلنا حزب هذا معارض كاي سياسة دو سيدا ست هاي بلشة هرتي ذا يقولن كي ما أنت نكشة إن وعضين بوحة يمرخاتيال وهايو أيه وحويري أحزاب السياسة جيه حتى فدقوا ديو دبيجي سيدي تبكي مي أنا كسو قيب قلين حفلته قرنمدا أي يجو السمايين تقرأ أو تاريخ دم كوبي صد سنوات مركي وجور رئيسي لما ده حسب قرن أي ديدين إنه يقارن كودا ميل كل الدبال دجان هذا الذي كيده هذا روحه كمدا أو فيصل ويجدي ندر إلهي وحن كجلينا إن أنا دعي دونين إن أروح السياسة يلا فرا وحن دونا هنا هل كان يديك الشيء حبيني ما دي بيش التدبية بالنقونيسي وضي علي ورن عدها هل كافرني علي محمد ورن عده يقدوميه نبان كدحه مدن علي oo intay xusbeeda mucaaradka u tageen ka soo wada hadlay in madaxweynaha loo yimaado iyo qolada kulmiyo la wada hadlo inaanu habeennimada ay sunnimay annagu waxaanu soo jeedinay damacyadiina iyo arrimihiina gaarka iyo dabaaldegiina haydin dambaysan laakiin habeenka 18 May maalinta xafladda qaranka aynu wada ciidno way ka cudur daarteen تضبيط طبعاً كبير بور ما يبرع كده بالدقيقة حاليا كي مكان وده هذا اللي قدوم إياها حسب قاعد فيصل على ورابه وحيده وين فشل الني دولة نمدد ودي كرم منهن دولتنا ودي كرم مينه حمر نواه تاسعتي إننا ما أنت وين يسكسو هرشدنا عيد النجوك لبنتتي إنه أباهنهاي وحي إنه أباهنهاي إن أي إنه صوماليا مرلبات كله قلنا أو إنه لا يعلنه وحلا ينهدو and federation إنه مرلبات لا يعلنه ميادو ملاين إنسان لما يتبني بانو نهاي مركانو هالكافرنا علي ورن عدو فرديا علي وو فرديا مدحوينه وو فرديا أحمد عبد الله وو فرديا أنو وان فرديا شنك تليها بليسكو وو فرديا تليها عيدا كقرنكو وو فرديا وزير كدينتي أوقافتو وو فرديا سيدات بانو النهي أيقونا واشن وفيصل وعرو وحرسي وعبد الله عكوسي وحلمان بارمان كان قطبو شن يسديد صدح يتبان قفبانو نهي مياي مدل مرخاتيك يدو قرسون بكر الله يحي horta nala yaabine markaan aad arkaysaan xinif iyo sheekhi Cabdul Casiis oo aad u qaylinaya
dee dadkaanu la macaamilnaa waa dadka federaalka xamar ku socda waxaan idin leenahay markaa xusbiyadii arrimahan maxaanku dhahday aynu ka kacayno ka hadlayno maadaama aragtida noocaasii jirto arrinta ugu badanay maanta axsaabta mucaaridkii ka hadlayaan waxa weeye inuu dalku galo khalkhal qaanuuni ah inuu galo constitutional crisis in dalka lagu abuuro oo marka crisiskaa la abuuro dabadeedna ay noqoto charleslada meeshii waxba noqon weydee xamar baa raja ka jirta ayaynu xamar tagno arrinkan aynu ka hadlaynaa markaa waxa weeye jawaabtayadii nagaga mudnayd waannu nidhi laakiin waxaa hadda xisbiga kulmiye ku adag inaannu la macaamilno oo wadahadal la yeelanno nin xamar u socda iyo nin somalilandiisa aaminsan miyay meel la ku heshiin karaan dadweynaha reer somaliland waxaan u sheegaynaa xusbiyadii ururadii siyaasiga ahaa waa la furayaa waxa aan leenahay ururo siyaasiya oo muddo kara oo idin ilaalin kara oo qarannimadiinna somaliland ilaalinaya maxaanku dhahdaayey dee ka doorta ururada dambe ee furmaya waxa kale oo arrintan ku jirta oo hadda ay intii dhaweyto markaannu si nimi hurteed madaxweynaha lagula soo hadlay oo ay bandhigeen oo qoraalna ku jeediyeen oo international community-ga bulshada adduunka qolyaha inoo yimaada diirka cad leh ay mar walba ku yidhaahdaan reer somaliland waannu ishaysannaa dagaal baa dhacaya waannu isdilaynaa hanala soo kala gaadho bulshadiinnan dadka shicibka ahee meel walba ka yimi meel dagaal ka socda miyaa garanaysaan innaku reer kulmiye cidaynu ishaysanno miyaad garanaysaan annakuna madax baannu idiin nahayoo cidna isma haysanno cidna col ma nihine waxa qure aynu doonaynaa inaynu ku soconno xeerarka la samaynaya waa kuwa xeer number 14 waa kaabista madaxweynuhu iminka uu u qoray ee baarlamaanka hor taalla waa taa baarlamaanka qarankana waxa hor yaalla ee iminka daruurigii maanta waxa weeye in xeerkaasi degdega loo baaskareeyo xeerkaasi dabadeedna uu camalgal u noqdo xeerkaasi dabadeedna u shaqeeyo arrintii haddeer uu ka hadlayay cabdilcasiis doorkii hore 2 sannadood bay qaadatay oo ay ku luntay arrintii murankii ay ka keeneen komishanka doorashooyinka kan dambe iminka markii la magacaabayna sannad iyo googoobay waxay lahaayeen in riya raaxa la bedelo maantana waxay odhan doonaan ma garanayno kulmiye wuxuu taagan yahay diyaar wuxuu u yahay isagoo raacaya xeerarka qaranka kulmiye isagoo raacaya dastuurka qaranka doorashada iminka ay ku qarwayaan ee ay ka hadlayaan ee madaxtooyada 6 bilood baa ka hadhay doorashadii tan ka horreysay ee xusbiga kulmiye qabtay ee 2 sannadood iyagu ay cuneen waa doorashadii ugu badnayd oo ay inoo timi tiro ku dhow ilaa 120 goob jooge oo international ah oo dhowr iyo 10 ka mid yihiin ay dowladaha Yurub ka socdaan oo safiir ay yihiin waxa ay qireen in ay tahay doorashadii ugu fiicnayd ama ay noqonayso doorashooyinka ugu fiican ee qaaradda Afrika geeska Afrikana doorashadii ugu fiicnayd ay tahay xisbiga kulmiye qabtay madaxweynaha halkan ku fadhiya iyo xukuumadda uu madaxda ka yahay baana qabtay maantana waxay diyaar loo yahay in doorashada la qabto mid muddo kale aynu qabanno kulmiye aan lagu xamanin uu gacan maroojiyey sidii kuwii hore
xisbiyada markaa waxaan leenahay walaalayaal arrimaha siyaasiga ah dhaqan bay ahayd Somaliland inay mar walba ka wada hadlaan waa idinka federaalka ka hadlaayee haddaad doonaysaan inaan annaka imikana maanta way naga go'anta in la wada hadlo laakiin waa inay ku soo noqdaan xayndaabka qarannimada Somaliland oo in badan ka fog wax la yiraahdo federaal iyo in koonfur la isku noqdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin inta badan siyaasiyiinta xisbiga kulmiye iyo xisbiyada mucaaradka oo haatan uu khilaaf weyn iyo xukuumadda uu soo food saaray kana dhaxeeyay muddo soo jiitamayay ayaa haatan tani waxay noqon kartaa mid dabka ku sii siraada waxaana la filayaa hadallada iyo waxyaabaha kala duwan ee arintaasi ka soo baxa maxamed cali xaashi telefishinka badcas magaalada Hargeysa dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helaya adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed